hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda ka dhaxeeya iyagoo dhanka kalena sheegay in ay codsanayaan in wax laga qabto cabashooyin ku aadan dhinaca canshuuraha. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya cali cabdiqaadir cali. kulankani oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay isugu yimaadeen ganacsatada magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo heli lahaa wadiiqooyin sahlaya xoojinta wada shaqaynta wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed. muddadii kulanka uu socday ayaa ganacsatadii ka qayb gashay kulankaasi waxa ay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin in la helo xafiis loogu hagaago wax ka qabashada cabashooyinka ganacsatada ayna qayb ka tahay arrimaha canshuuraadka la xiriira. gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay ujeedka kulankooda. mid ku saabsan cabasho ganacsatada ay ka cabanayso dhaqaalaha tirada badan leh lacagtaas oo 4 bilyan shilin Soomaali ah ayay ganacsatada calaaqaado laga qaadaa markuu soo galayo markuu baxayo. arrintaas oo culeys badan businesska u keentay sababtoo ah wixii laga qaadayo Muqdisho ee gobolada u baxay culeys badan afuulay wixii soo galay soo kala marka midaas mid labaadna waa arrimo ku saabsan shaqooyinka dekada ay hadda socda haddii noqon lahayd ganacsatada dhexdooda arbitration oo ganacsatada isu tahay haddii noqon lahayd albeerid iyo ganacsatada dhexdooda haddii noqon lahayd wasaaradda dekedaha iyadana qayb laga ahayd waxyaalo socda solutionkooda inaan dhamaystirna iyadana aan u fadhino maanta wasaaradda maaliyadda rugta ganacsiga wada shaqayn fiican aa dhex marta waana ay wada shaqeeyaan hadda lafteeda si qurux wada shaqeeyaan laakiin meelaha mararka aan su fahmi lahayn waxa weeye canshuuraha jira saxda ah in la qaado iyagaa la qaadanayna haddana waa la qaabaynaa. sidoo kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa muujiyay sida ay diyaarka ugu yihiin wada shaqaynta hay'adaha dawladda oo arrimahooda qusaya ganacsatada iyo howlaha dekada ka socda isagoo xusay in dhawaan ay la fariisan doonaan mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda si loo helo talo ay ku midaysan yihiin oo lagu horumarin karo howlaha ganacsatada Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa wasiirka maaliyadda iyo wasaaraddu waa la kulmi doonaa wiigan waxaan rajaynayaa in wax fiican ku dhamaato xanuunkaasna aad duwisaan asaasna aan gacmo isku qabsano insha Allah dawladana wax badan aan kala shaqeyno howlo badan arrimihii oo dekaduna hadda waa gabagabo alpeeri shaqada si fiican ku socotaa dhammaan joogta qaar ka mid ah ganacsatada kulankaasi ka qayb gashay ayaa codsaday in la tixgeliyo cabashooyinka ay qabaan ayagoo xusayna wada shaqayn ay diyaar u yihiin. arrintaas ganacsatada cabasho weyn ay ka qabtaa waxaan rabnaa wasaaradda maaliyadda inay sharci ahaan meelaha ay leedahay oo sida dekada oo kale sida canshuuraha beriga oo kale ama xataa xuduudaha waddanka laga soo galo inay tagto marka insha Allah intaas ku soo gabagabeynaya cabasho guud oo arrinta maanta baalka dadkan isku yimid waa cabashadaas waxa ay baalka ka cabanayaan marka arrintaas aan soo jeedinaynaa in la gaarsiiyo wasaaradda cidda wax ka qabashadeeda iska xag amni ahaan iyo xabaarka dhinac walba ay ku fiicneen. dawladda Soomaaliya ayaa wada dadaal ku aadan sidii loo heli lahaa nidaamka qaadista canshuuraadka beriga taas oo horay u ansixiyeen golaha wasiirada. maamulka ku meel gaarka ah ee Jubba ayaa